maanta waxaa ka hadli doonaa sirta nolosha ee badda hoosteeda. dhab ahaantii badda hoosteeda waa duni qarsoon oo aad u layaab badan Allahna uu abuuray. Markii aan ka tagno dusha sare ee qoraxda ee hayso, halkaas waxaa ka bilaabanaya nolol kale oo gabi ahaanba ka duwan nolosha dhulka. waxaana jira noolayaal aan indhahayna caadiyan aysan arkin, kalluun ama malaay iftiin sameeya, xayawaano aan indho lahayn, iyo kuwo kale oo midabi aan la qiyaasi karin leh. qaar ka mid ah noolayaashaasna waxay ku nool yihiin meel aysan gabi ahaanba qoraxda aysan gaarin, ayagoo isticmaalaya tamarta kulka ee dhulka hoostiisa ka soo baxda. noloshaas qarsoon waxayna baraysaa hal shay oo ah in meel kastoo adduunka ka mid ah ay ka jirto nolol, xitaa halka aan u malaynayno inay waxba aysan ku noolaan karin. badda hoosteeda waa cashar Allah oo inoogu talagalay si aan u fahamno quruxda iyo hal abuurka abuurkiisa. markii aan ka hadalno meelaha mugdiga ah ee badda hoosteeda, aan u baxno 100 mitir badda hoosteeda, waxaan aragnaa gabi ahaanba iftiinka qoraxda inuu lumay. waxaana bilaabmayo qaybo la yiraahdo the midnight zone. halkaasna waa mugdi madow oo aan la arki karin waxa ku jira, laakiin mugdigaas waxaa ku nool noolayaal cajiib ah. kalluun leh ilka waaweyn oo aad ku aragtay sheekooyin cabsi leh filimaanta horarka ee badda. sidoo kalena waxaa ku arkaysaa shimbirabadeedyo oo indhahooda ifaya sida nal yar oo kale, iyo xayawaano yaryar oo jirkooda dhalaalayo si ay isku helaan. waxaa la yaab leh in noolayaashaas gabi ahaanba aysan u baahnayn iftiinka qoraxda, waxayna helaan hab ay ku noolaadaan iyagoo isticmaalayo cadaadiska jirkooda, qabowga iyo mugdiga aadka u daran. taasina waa tusaale muujinaysa in abuurka Alleh uu yahay mid aan xad lahayn. markaasi gooni aan ugu hadalno kalluunka sameeya iftiinka oo Ingiriishaan loo yaqaano bioluminescence, waa mid ka mid ah noolayaasha ugu yaabka badan ee ku nool badda hoosteeda. kalluunkan iyo shimbirabadeedyada aan hore u soo sheegnay waxay soo saaraan iftiinyo kala ah buluug, cagaar iyo guduud. iftiinkaasna waxay u isticmaalaan si ay u ugaarsadaan ama ay isku difaacaan. qaar kalena iftiinkaas waxay u isticmaalaan ugaarsadayaasha si ay u jahwareeriyaan, halka kuwa kalena ay u isticmaalaan si ay u helaan lamaane. markii aan ka hadlo cuntada badda hoosteeda, waa mid aad u yar. qoraxna ma jirto, dhirtana ma korto, sideedaba dhirta waxay ku kortaa iftiinka qoraxda. sidaa darteed noolayaasha halkaas ku nool waa inay helaan hab kale ay ku noolaadaan. qaar waxay cunaan walxaha ku soo daashay dusha sare ee badda sida caleemaha iyo xayawaanada dhintay. qaar kalena waxay si toos u helaan tamarta ka timaada macdanta kulul ee ka soo baxda dhulka hoostiisa. sidoo kalena waxaa jira bakteeriya awood u leh inay cunto ka samaysato tamarta kiimikada ee biyaha ku jira, iyadoo aan u baahnayn iftiinka qoraxda. taasina waa nolol la dagaalamaysa xaaladda adag haddana sii jirta. qaybta kale markii aan tagno oo ah coral reefs, oo loo yaqaano af Soomaali ahaan magaalooyinka nool ee badda, waa dhismayaal nool oo ay samaysteen malaayiin noole oo isku taga oo aad u yar oo la yiraahdo coral polyps. inkastoo u eg yihiin dhagaxyo adag, dhab ahaantiin waa noolayaal nool. coral reefs waxay noqdeen hooy iyo magaalo nolol u noqotay kumanaan noole, waxayna ka kooban yihiin kalluun, dhoobo iyo dhir. waxaana lagu tilmaamay inay yihiin lugaha badda, sababtoo ah waxay bixiyaan cunto, hooy iyo difaac. laakiin reefska qaar ayaa hadda halis ku jira sababo la xiriira kuleylka caalamka iyo qashinka lagu daadiyo badda. haddii la waayo reefska, malaayiin noole ayaa waayi doona guryahooda dabiiciga ah. dhab ahaantii coral reefska waa ilaalinta nolosha badda oo dhan. markii aan badda hoos ugu degno in ka badan 4,000 oo mitir, waxaad gashaa meel loo yaqaano abyssal zone. halkan waa meesha ugu mugdiga badan ee nolosha ay ka jirto. cadaadiska meeshan waa kumanaantan, heerkulkan waa qabow aad u daran. halkaas aynu ka hadlayno qorax ma gaarto, haddana nolol baa ka taagan oo ka jirta. kalluuno iyo xayawaano aan la arki karin ayaa halkaas ku nool. mid walbana wuxuu leeyahay qaab gaar ah oo u noolaan karo. xaaladaha adag aawadood. qaar waxay leeyihiin jir jilicsan oo cadaadiska aan ka baqin. meeshan aynu ka hadlayno weli bini'aadanka si buuxda muusan u baran. taasina waxay caddayn u tahay in mucjisooyinka badda aan weli la arag. baddana u jeedno waxay dunida ku fadhidaa 70%. ayadoo saas ay tahay, waxaa haddana la ogaaday amba cilmi laga haystaa 5% oo keliya. badda saan u weyn 5% oo keliya ayaa la ogaaday, 95 kalena weli waa ay dhiman tahay. tan xigta xidigaha badda, xilliga habeenka ayaa la arkaa intooda badan. starfishna waa noole badeed oo cajiib ah, qaab dhismeedkiisuna u eegyahay xidig. waxaana aad u layaab badan ayaa ah mid ka mid ah haddii gacmihiisa la jaro dib ayay ugu soo baxayaan. taasina waa awood Alle uu ku abuuray si uu ugu noolaado xaaladda adag.
Starfish wuxuu quutaa ama uu cunaa nooleyaasha kale oo yaryar, wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaraa isku dheelitirnaadka deegaanka badda. waxaana jira in ka badan 1500 oo nooc oo starfish ah, mid walbana wuxuu leeyahay midab iyo muuqaal asi u gooni ah. markii aad eegto starfish waxaad arkaysaa naqshad dabiici ah oo muujinaysa quruxda iyo xigmadda abuurka Eebe. shabeelaha badda waa mid ka mid ah xayawaanada ugu awoodda badan ee badda ku nool, wuxuuna u ugaarsadaa si xirfad leh. waxay maqlaan gariirka biyaha meel ayaga ka fog, waxayna uriyaan dhibic dhiig ah meel aysan gaari karin aragtida bini'aadamka. xayawaanka loo yaqaan shark ma ahan xayawaan xun sida bini'aadamka ay u arkaan. waa qayb muhiim ah oo ilaalisa isku dheelitirnaanta deegaanka badda. waxaa jiro in ka badan 400 oo nooc oo shark ah, mid walbana wuxuu leeyahay qaab nololeed asiga u gooni ah. meelaha qaar ee badda hoosteedana waxaa ka soo baxayo biyo aad u kulul oo ka imaanaya badda hoosteeda, waxaana lagu magacaabaa hydrothermal vents. markii ay biyaha kulul ee la kulmaan biyaha qabow ee badda, waxaa abuurma xaalad tamar oo ay nooleyaasha qaar ay ka faa'iideystaan. bacteria iyo fungus ayaa halkaas ka samaysta cuntadooda iyagoo isticmaalaya tamarta kiimikada halkii ay heli lahaayeen qoraxda. waxaa toos inoo geysaa xayawaanada qarsoon ee badda hoosteeda ku nool. mid ka mid ah seeraha ugu weyn ee badda hoosteeda waa giant squid. giant squid inuu dhawaaq ii qaldan laga yaabaa. waxaa la sheegaa inuu yahay xayawaan aad u weyn oo dhererkiisa gaarayo ilaa 13 mitir. waxaa aad u yar dadka arka xayawaankan sababtoo ah wuxuu ku dhuntaa meelaha hoose ee badda, wuxuuna leeyahay indho aad u waaweyn oo ku arka mugdiga. giant squid wuxuu cunto ka dhigtaa kalluunada kale iyo xitaa xayawaanada kale ee waaweyn. waa mid ka mid ah nooleyaasha aan si buuxda loo baran, taasoo ka dhigaysa astaanta qarsoodida ee badda hoosteeda. nagey kalluunka midabka bedela. camouflage waa awoodda lagu bedelo midabka jirka. kalluun iyo xayawaano kale waxay awood u leeyihiin inay isku ekeysiiyaan shaygii ee markaas ay ku taagan yihiin, sida geedan loo yaqaano uruguay, xayawaanka loo yaqaano octopus. camouflage waa difaac dabiici ah oo Allah ugu talagalay inuu noolaha ku badbaado, waana mid ka mid ah mucjisooyinka muuqda ee nolosha badda hoose. nolosha badda waxaa maanta halis weyn ku haya qashinka bini'aadamka ay ku daadiyaan sida caagaha balaastikada ah oo ku sii jiri kara biyaha hoostooda 100 sano. waxaana cunaya oo isticmaalaya xayawaanada sida kalluunka oo kale, kuwaasoo u malaynaya cunto, taasoo sabab u keeni karta inuu ku dhinto ama uu qaado cudur qashinkaas aawadiis. sidoo kalena waxaa dhaabac gaarayo reefriska. ilaalinta badda waa mas'uuliyad inaga saaran dhammaanteen. haddii aan ilaalino badda, waxaan ilaalinay nolosha malaayiin noole oo Allah uu abuuray. dhirta badda waxay ka mid yihiin kuwa aad ugu muhiimsan nolosha badda. waxay soo saaraan oksijiin badan oo ay xayawaanada ay ku nool yihiin, waxayna u yihiin cunto iyo hoy nooleyaasha badda. su'aal ah, badda iyo saamaynta cimilada dunida maxaa isaga galay? badda hoosteeda waxay kaalin weyn ku leedahay ilaalinta cimilada dunida, waxayna nuugtaa kuleelka iyo kaarboonka hawada ku jira. sidoo kalena waxay soo saartaa oksijiinka aan ku neefsano. haddaba ogaada, haddii aan badda qashin iyo aan ku shubno, cimilada dhulka oo dhan way isbedelaysaa. baddana ma ahan oo kaliya meel uu ku nool yahay kalluun, waa wadnaha dhulka. sidaa darteed waa inaan ilaalinaa badda. badda hoosteeda ma aha meel aamusan sida aynu u malaynayno. dhab ahaantii waa meel aad u buuq badan oo ka soo baxaya codad iyo gariirka kalluunka iyo dhawaaqyo biyaha ah ayaa isku dhex jira. waxay isgaarsiintaa codadka fog oo xitaa 10 kiiloomitir laga maqli karo. kalluunada yaryar u isticmaalaan gariir iyo iftiin si ay isu fahmaan amba u ugaarsadaan. tanina waxay muujinaysaa in xitaa meelaha mugdiga ah xiriir iyo faham uu jiro. markii aan ka hadalno mucjisada abuurka Eebe, markii aad fiiriso badda hoosteeda, waxaad arkaysaa mucjisooyin aan tiro lahayn. nooleyaal iftiimaya, kuwo la mid ah dhagaxa, iyo kuwo indho la'aan ah oo haddana si caqli badan u nool. mid walbana wuxuu leeyahay shaqo iyo sabab uu halkaas ugu nool yahay. nidaamkaas isku dheelitiran wuxuu muujinayaa in aysan waxba dhicin si kadis ah. badda hoosteeda waa meel lagu arko awood iyo xigmadda abuurka Eebe. markii aan ka hadalno badda hoosteeda, waa duni aan dhammaad lahayn. inkastoo cilmi-baarayaasha ay ku dadaaleen inay fahmaan badda hoosteeda waxa ku jiro, haddana waxaa la rumaysan yahay in aysan baran wax ka yar 10%. taasina micnaheedu waxay tahay in mucjisooyin badan oo aan weli la arkin ay ku jiraan halkaas, sida nooleyaal cusub, nidaamyo cusub iyo sir badan oo Allah uu asturay.
badda hoosteeda waa duni kale oo qarsoon. Qofkii bartana wuxuu dareemayaa inuu yahay mid aad u yar marka la eego abuurka weyn ee Rabbigiisa. Bye bye.